guud ahaan baaqi artana daawanaysa waa mar kale barnaamijkeeni gobonimo doon TV qodobada maanta oo idin hayana waxaa kamid ah qarax xoogan oo ka dhacay degmada Maxaas howlgal laga fulay isla degmadaasi xaalka degmada Maxaas waa sidee madaxweynaha Soomaaliya oo maalintii saddexan ku sugan degmadaasi qodobadaasi ayaa barnaamijka ku maqli doontaan wararka aan ka helayno degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in kordhow qarax aad u xoogan jugtiisana laga maqlay qayb kamid ah oo ka dhacay degmada Maxaas waxaana qaraxaasi la sheegay in uu ka dhacay kontarool magaalada laga soo galo gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa kuna sii jeeday degmada Maxaas ayaa lagu qarxiyay banaanka magaalada waxaana la sheegay gaarigaasi in ay fashiliyeen oo qarxiyeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa nabad sugidda ee ku sugan banaanka degmada Maxaas inta la xaqiijiyay qaraxa waxa ku geeriyooday wadihii gaariga waday lamana soo sheegin qasaaro qaraxa ka soo gaaray ciidamada macawisleyda iyo kuwa kale ee ammaanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilliga qaraxa uu dhacayay ku sugnaa xiro ciidanka dawladda ku leeyihiin degmadaasi waxa uuna halkaasi kula hadlayay ciidanka goobta ku sugnaa Xasan Sheekh Maxamuud oo maalintii saddexan ku sugan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa halkaasi ka wada kulamo siyaasadeed iyo sidoo kale abaabul dagaal oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab